بسم الله الرحمن الرحيم أدبان إذنكم هذا علنا تيم كنا كسعودة تياتر برودكشن رانتي شرف وين بيتاي إن مارك تامانتا يقع عسنتان إن أنكه الله إن أرمها سبورتس كي بونتلاند تيم كأو في صفن حلك بونتلاند رانتي تغير بدن ayaa loo fidiyay ha noqoto ganacsatada ha noqoto dawladda Puntland ha noqoto shacbiyadeeda aad baan waxaan raalli uga nahay maqsuudna ku nahay heerka ay soo gaareen runaantii laba habeen ka hor intaysan ciyaarta shalay ciyaarin ayaa tiimka aan la hadlay iyo maamulkiisa wax kalena ma ahayn waxaan kala hadlay in tiimka la dhiirigeliyo waxaanan u ballan qaaday in $26,000 ala player loo raadinayo $1,000 oo lacagtaas mas'uuliyadeeda anaa qaaday laakiin kaligay ma bixinayo lacagta waxay kala imaanaysaa dawladda qayb baa bixin doonta oo shakhsiyaad dawladda kamid ah qaybna ganacsatada iyo shakhsiyaad private ayay ka imaanaysaa qaarna anaa bixinaya hadii aan leedmo lacagta muddo 3 cisho gudaheeda lagu bixin doonaa hadii aan leedmo mas'uuliyadeedana anaa gacanta ku haya haddana inteeda badan gacanta ayaan ku hayaa insha Allah waxaan rajeynayaa ilaa biri inay soo gabagabowdo lacagta wax kale looguma talagelin dhiirigelinta waxa la rabay tiimkii in moralkooda lagu qaado ciyaarta shalay wanaagsaneed ay soo bandhigeen laga abaalmariyo taas waxay noqonaysaa lacag lagu siin doono 3 cisho gudahood markii koobka la gaaro hadii ay qaadaan iyo hadii saqaadin bayaduna waxay noqon doontaa wax umada reer Puntland u wada taalo oo maaragta dhiirigelinteedii sugaysa laakiin tan kuma xirna inay koob qaadaan iyo in wax kale waa mid aan u garanay hadaan ganacsatada dawladda iyo shacabka reer Puntland inaanu lacagtaas maaragta sida ugu dhaqsiyaha badan ugu ku gaarsiino kuna abaalmarino runtii tiimku uma baahna inta oo kaliya waxyaabo badan oo imkaaniyaad u baahan yahay sida garoonka in loo hagaajiyo oo loo cagdhigo roogii wixii la dhigo taageero dhaqaale la siiyo oo la dardar geliyo oo aan la xasuusan xilliga ay koob ku jiraan oo kaliya marka ganacsatada guud ahaan reer Puntland waxaan ugu baaqayaa in ay maaragta taageeraan dhalinyarada bahda sportska guud ahaan gaar ahaan xulka qaranka ee noo taagan waa sanadkii labaad weli waxaad ka muuqata inaysan weli dhameystirnayn wax kasta inaan dawladdu ku hadlayno ka sugno ma dawladdu waa anaga naga timaada marka waxaan baaq soo jeedinayaa cid kasto wax gal ah oo reer Puntland ah in maaragta ay ka qayb qaataan dhiirigelinta dhalinta iyo ciyaaraha waayo waa waxa kaliya oo dhalinta looga ilaalin karo dambiyada ay galayaan waana waxa kaliya horumarkeena uu ku dhisan yahay maantay shalay ciyaartayd waa ogeydeen intaas milyan oo reer Puntland ah baa wicnaha raalli ka wada noqotay guusha ay keeneen taasoo dad kooban oo dhalinyaro ah waqtigoodii aqoontoodii cilmigoodii awoodoodii ku bixiyay annagu ma waxaan u awoodi weynay wax yar oo taageero dhaqaale ah inaanu siino calaa qof ama calaa shirkad oo wax simbala waxaan soo jeedinayaa in si degdeg ah wax loogu qabto loona taageeraduna maalin iyo laba inaysan ahaanay inay tahay wax joogto ah oo muuqata